Jubbaland yaa naf iyo maalba u soo hurnay ayaana lagu dulminayaa. Jubbaland waa halkan ku dhashay, ku barbaaray, aan ku dhalay, welina aan ku noolahay. Waxaan u soo hurnay wixii ugu qaalisanaa oo ah naftaannada, maalkaannada iyo waqtigaannada. Waxaan ku waayay aabbahay macaane oo u geeriyooday difaaca Jubbaland. Waxaa sidoo kale aan ku waayay saygayda ama ninkayda oo isagana u geeriyooday difaaca Jubbaland. tani waa dhacdo argagax badan oo ku dhacday Farxiyo Cabdi Bashiir oo ka mid ah gabdhaha reer Jubbaland ee halgamayada ee muddada dheer u soo halgamayay sidii Jubbaland ay ula tartami lahayd faceeda. dhacdadan argagaxa badan ee Farxiyo Bashiir ku dhacday waxay ka soo gaadhay maamulka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, dulmi, tacaddi, cagajuglayn iyo weliba dhac ayaana loo geystay. qoraal dheer oo Farxiyo ay nala wadaagtay ayaana muuqaalkan ku baahin doonaa oo si guud ugu dulmari doonaa. soo dhawaada idinkuna aragtidiina igula wadaaga qaybta commentiga, muuqaalkana sii share gareeya. aan ku bilaabay Farxiyo Cabdi Bashiir oo ka mid ah halgamayada reer Jubbaland, gabadh reer Jubbaland ku dhalatay, ku barbaartay, ku dhashay, welina ku nool, ayaa tacaddi iyo dhibaato badan ay ka soo gaadhay maamulkii ay muddada badan ka tirsanayd ee markaasi ka arriminayay Jubbaland. Farxiyo Cabdi Bashiir sida la ii xaqiijiyay waa gabar reer Jubbaland, halgamayad ah, wadaniyad ah, ka tirsan ciidanka daraawiishta Jubbaland, ka mid ahayd dhalinyaradii qoriga deegta suratay ama garabka suratay ee 2011 u istaagtay sidii loo xoreyn lahaa dhulka reer Jubbaland ee markaasi weliba gaar ahaan sida tooska u aaday Kismaayo. walow markii dambe rajadii dhalinyaradu ay qabeen aysan sidii ay rabeen aysan u hirgelin oo Axmed Madoobe iyo mas'uuliyiintii markaasi ku wehelisay talada ay go'aamiyeen inaan Kismaayo dhinac loo dhaafin. sheekadan ama qoraalkan Farxiyo Cabdi Bashiir iyo tabashooyinkii iyo dhacdada ku dhacday ayaan soo koobi doonaa. haddii aan horay u guda galo qoraalka Farxiyo Cabdi Bashiir wuxuu ka bilaabanayaa Jubbaland aan naf iyo maal u soo hurnay, maanta dulmi ayaana lagu hayaa. Jubbaland waa halkan ku dhashay, ku barbaaray, kuna dhalay, ilaa haddana aan ku noolahay. Jubbaland waxaan u huray wixii ugu sarreeyay ama ugu qaalisanaa, taasoo ah naftayda. waxaan ku waayay dad qaali igu ahaa, allaha u naxariistee aabbahay Cabdi Bashiir ayaa ka mid oo ku geeriyooday difaaca Jubbaland. waxaan sidoo kale ku waayay saygayda oo isagana u geeriyooday rasaas ka soo gaadhay difaaca Jubbaland. anigoo ah Farxiyo Cabdi Bashiir waxaan qoriga dhabarka ama garabka aan surtay 2011. waxaa halgankaygu ku soo bilaabmay ama ka soo bilaabmay afmadow, balse waxaas halganka iyo naf huridda ah ee aan Jubbaland u galnay qoys ahaan inaan dheef ka helnay iska daaye annagiibaa dhibaato iyo dhac naloo geystay. waxaana laga xoogay dhulkii aan ku lahayn Doobley. Farxiyo Cabdi Bashiir ayaa sheegtay waxaasoo halgan ah, naf huridnimo ah ee ay u soo galeen aabbaheedu u geeriyooday, saygeedii uu geeriyooday, dheef ay ka helaan iska daaye in laga xoogay dhulkii ay ku lahaayeen magaalada Doobley iyo sidoo kaleeto deegaanada kaleba. waxay sheegtay in 2 boos oo ay ku lahaayeen Doobley laga qaatay, xarunta hadda garoonka diyaaradaha ee Doobley iyagoo ay lahaayeen laga qaaday, ay iska samreen. xarunta nabad sugidda iyagoo ay lahaayeen laga xoogay. iyadoo intaasoo dhula laga qaaday haddana ma aysan helin xuquuqdii asaasiga ahayd ee ay ku lahaayeen Jubbaland, maadaama ay Farxiyo ka mid tahay askarta daraawiishta Jubbaland ama ciidanka daraawiishta Jubbaland. Farxiyo waxay sheegtay in darajooyinka iyo sidoo kaleeto xilalkaba Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu ku bixiyay hab qabyaaladaysan oo qabiila, eexo iyo weliba dhibaato. waxay sheegtay muddada intaan leeg ee ay markaasi ka mid ahayd ciidanka daraawiishta Jubbaland amaba Jubbaland ay halgankeeda u taagnay inaysan helin haba yaraatee wax xuquuq ah oo xuquuqdii caadiga ahayd ee loo wada sinaa hab eexa lagu bixiyay oo iyada aysan qoys ahaan waxba ka helin.
farxiyo iyo sidoo kaleeto dad badan oo halgan dheer usoo galay jubbaland ayaa dhibaato xoogan weli ka tabanaya maamulka axmed maxamed islaam. waxay ku tilmaantay farxiyo qof walba oo meel fiican jooga ama darajo qaatay waa ina adeerkii axmed maxamed islaam in adeerkii un weeye, wax kale oo taabanaya amaba wax helaya ma jiro. waxaa sidan oo kaleeto maalmo ka hor isoo gaadhay nuqulka qoraal ka mid ah habqaybsiga saraakiisha ciidanka gaar ahaan weliba kuwa nabad sugidda oo la ii xaqiijiyey 30 sargaal ee waaxaha kala duwan ee nabad sugidda iyo sirdoonka jubbaland in dhammaantood ay noqdeen jufada hoose ee madaxweynaha jubbaland madaxweynihii hore jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe. arrimahan muddo dheer ayaan ka soo hadlaynay, eexda, ninjeclaysiga, dhibaataynta dadka, cagajuglaynta, dhaca iyo weliba in aadan markaasi lahayn haba yaraatee wax xuquuqa haddii aadan noqonin qof u dhega nugul axmed maxamed islaam oo kabaqaad u ah ama markaasi aadan meel qaraabo kala ahayn. waana dhacdadan argagaxa badan ee farxiya cabdi ay baraha bulshada ku baahisay ee markaasi ay kaga cabanayso axmed maxamed islaam. dhammaan dadka jooga jubbaland ee horay usoo halgamay ayaa sidoo kaleeto cabashadani qaba oo sidan iyo weliba si kastii daran markaasi lagu sameeyey. waa habdhaqanka axmed maxamed islaam axmed madoobe ee markaasi uu kula dhaqmayo bulshada deegaanada markaasi uu xukumo. sidaan wada ogsoonnahayba dhalinyarada reer jubbaland iyagoo midaysan, faraxsan, waxa weeye feejignaan badani ay ku jirto ayay galeen dagaalkii 2011 taasoo ay ka rajo qabeen in kooxaha argagixisada laga xoreeyo dhulkooda si ay noolal iyo mustaqbal wanaagsan ay u helaan. ninkii markaasi dagaalkaasi aan ku dhimanin naftooda ayay geliyeen, sida farxiyo oo kale ayay ahaayeen. markii la tegay magaalada Kismaayo waxaa dhacday in magaalada Kismaayo lagu ooday dhalinyaradii la yidhi dhinaca uma bixi kartaan, si markaas loo xadado dhaqdhaqaaqa nolosha iyo sidoo kaleeto xorriyaddaba dadka reer jubbaland. Kismaayo ayay xabsi ku yihiin, meelna uma dhaqaaqi karaan. waxaa suurtagala muuqaalkan hadda aan baahinayno in daqiiqadaha inugu soo aadan markuu baraha bulshada galo in farxiyo ay dhibaato xoogan haddana kala sii kulanto axmed maxamed islaam xorriyad la-aanta awgeed ka jirta deegaanada oo axmed madoobe markaasi ka taliyo. farxiya oo qoraalkeeda sii wadato ayaa tiri haba nala dhaco oo ma xumo, balse waxaa nasiib darro ah in dhididkeenna ay maanta dhuuqayaan shakhsiyaad shalay ta yimid oo aan dhulka waqti iyo juhdi iyo dhaqaalo iyo naftoona aan gelinin, oo dhididkaanadii annagu aan intaa u soo daalay shakhsiyaad shalay ta imaaday oo ina adeeradiiya ayaa dhuuqaya, annagii u soo halganayna bannaanka ayaana lagu joojinayaa. waa tacaddi aad iyo aad u weyn weeye. farxiyo waa hooyo Soomaaliyeed, waa gabadh Soomaaliyeed, dhibaato badan baa ku dhacday, dhul waxay haysteen oo dhan waa laga qaatay, aabbaheed waa dhintay, walaalkeed waxaan ka wadaa ninkeedii waa ku dhintay, iyadana weli qoriga ayaa garabka u suran. nasiiyo ma hesho, darajo kuma hesho, dhaqaale kuma hesho, dhidid iyo waxa weye miishaarkeedii ma hesho, dalacsiin kuma hesho, waxbana kuma hesho.